horumaray Ingiriiska, Israa'iil xitaa way ku jirtaa, South Africa iyo wadamo badan oo inta Western Europeans ay u badan yihiin iyo meelahay ay qabsadeen sida Mareykan iyo Canada oo kale, waxay in muddo ka shaqeynayeen sida qofka bini'aadanka maskaxdiisa loo gumaysan lahaa. Because haddaa qofka maskaxdiisa aad gumaysato, qofka sidaa doontaa ka samayn kartaa. Wax alla waxaad doonaysid oo weliba si joogto ah ayaa qofkaa u isticmaali karaysaa. Marka buug ayuu qoray nin la yiraahdo oo nin Yahuudi ah oo Israa'iili ah la yiraahdo Yuval Noah Harari. wuxuu qoray buug la yiraahdo, buugag badan buu qoray, laakiin kan buugan aan maanta ka hadlay specifically waa kan buugan, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Homo Deus, A Brief History of Tomorrow waa buug uu ka hadlayo bini'aadanka. Marka kelmadaha Soomaaliga aan research ku suubiye sidaan u ogaado waxa Soomaaliga lagu yiraahdo waxaa ka mid ah algorithms, xisaabeed, data ama data waa xog, iyo kelmadan aan conspiracy theory aan sheegay oo ah aragtinimo sir ku dhisan ama aragtinimo qiyaamo ku dhisan. Okay. iyo kelmada kale probabilities oo algorithms xisaabta ka mid ah waa waxyaabaha suurtagalka ah. Okay, so marka hadda aan ka hadla toodigan waxaasoo dhan u soo sheegay aan idiin sharaxo. Aniga haddaan video suubinayo iskama suubiyo videoga. Toobigyada ugu muhiimsan oo aniga i taabtay, nolosheyda taabtay, ayaan soo bandhigaa sidaan Soomaalida ula socodsiiyo. waxaan uguma talagalin kaliya dadka jaamacadda soo dhigtay, dadkan la yiraahdo way cilmi badan bay leeyihiin maasha Allah ah. waxaan anigu u soo bandhigayaa videoyaashaydan in qof waliba oo Soomaali ah si uu u fahmi karo ayaan isku dayayaa inaan idinku sharxo. Because dadkeenna waa qasab inay fahmaan arrintan. waa qasab sida Soomaalida ay u badbaado jiilashan soo socda iyo caruurtan dhalanaysa iyo kuway dhali doonaan aan qabyaaladan maskaxda naga qaadatay